ma ahaan kartid nin awood leh xamaasadiisu badan tahay, ma ahaan kartid nin niyad wanaagsan, ma ahaan kartid nin muuqaalkiisa jireed uu xoogan yahay haddii mid ka mid ah hormoonadaada ugu muhiimsan jirkaaga uu hoos u dhaco 50%. dhalinyaro iyo odayaal badan ayaa maanta nool kuwa oo la daalaadhacaya xaalado ay u malaynayaan inay yihiin kuwa caadi ah, xaalado ay u malaynayaan inay yihiin xanuuno maskaxda ah ay la daalaadhacayaan. waxay dareemaan daal joogto ah, waxay dareemaan in shaqadu ay dhibsadeen, waxay dareemaan in jirdhiskii aysan wadi karin, waxay xitaa dareemaan in dareenkoodii raganimada uu gabi ahaanba hoos u socdo, weliba sii baaba'ayo. laakiin inta badan dhibaatadu ma aha wax aad u adag, waa arrin yar oo fudud oo inta badan aynan dadkan muhiimad siinin, arrin ay dhayalsadeen, arrin ay la tahay wax iska caadi ah, taas oo hoos u dhigaysa, weliba burburinaysa hormoonadii raganimada, burburinaysa awooddii taranka, burburinaysa shahwadii, burburinaysa wax kasta oo nin raga ah laga heli jiray. maanta waxaan ku noolnahay bulsho ammaanta jecel, bulsho inta badan dadaalka ku faanta, bulsho ku faanta in nasasho yar ay heshay ayaan maantana annaga. ragga badankooda waxay u malaynayaan marka in saacadaha nasashada oo lasoo yareeyo inayba tahay furaha guusha lagu helo, furaha nolol wanaagsan lagu helo. waxay ka tanaasuleen nasashadii saxda ahayd, waxay joojiyeen hurdadii saxda ahayd, waxay yareeyeen nasashadii, waxay yareeyeen jirdhiskii, iyagoo xataa aan ogeyn inay tahay arrinta ay sameynayaan habka ugu dhaqsaha badan ee jirka awooddiisa dabiiciga ah lagu baabi'inayo inay tahay. sayniska maanta wuxuu muujinayaa in habdhismeedka jirka, gaar ahaan marka gudaha qalqal ka jiro, jirku inuu xitaa demin doono nidaamyadii kale ee taranka, nidaamyadii kale ee awooddii raganimada. macnaha haddii jirka gudaha qalqal ka jiro, awooddii waxay noqonaysaa mid baaba'da. marka fahamka sida hormoonada ragga ay u shaqeeyaan, fahamka sida hormoonada ragga kor loogu qaado, fahamka sida looga hortago hormoonada ragga inay hoos u dhacaan, waa wax kasta oo maanta laga rabo nin kasta oo raba inuu guul gaaro, nolosha ha noqoto, taranka ha noqoto, nin kasta ayaa laga rabaa inuu arrintan fahmo. testosteronku ma aha marka kaliya mid murqaha dhisaaya, testosteronku ma aha kaliya mid taranka ka qayb qaata kaliya ma aha. testosteronka shaqadiisu intaas way ka badan tahay. testosteronka waa habka kaliya ama hormoonka maamula rabitaankaaga guusha. haddii aad rabitaankaaga guusha, testosteron ayaa maamula. testosteronkaaga hoos ayuu dhacsan yahay haddii rabitaankaaga guusha uu yaryahay. kalsoonidaada, testosteron ayaa maamula. xoogga lafahaaga, testosteron ayaa maamula. sida ay maskaxdaada u maareyso culeysyada nolosha, testosteron ayaa maamula. welwelka iyo stresska sida aad uga hortagto, testosteron ayaa maamula. marka hormoonkani hoos u dhaco, marka weliba meel hoose uu gaaro, awoodda raganimadaada waxay bilaabaysaa inay hoos u dhacdo. jahwareer ayaa kugu bilaabanaya, tarankaagii ayaa yaraanaya, jamaacaagii ayaa hoos u dhacaya. nidaam kasta marka oo jirka bini'aadanka ku dhex jira, waxaa jira xilliyo la cusboonaysiiyo, waxaa jira xilliyo la habeeyo, waxaa jira xilliyo kor loo qaado. marka ninku habeenkii seexdo, inta badan jirku wuxuu bilaabaa shaqo aad u baaxad weyn. wuxuu bilaabaa jirku inuu hormoonada cusboonaysiiyo, wuxuu bilaabaa in unugyadii taranka dib u dhis lagu sameeyo. marka aad jiifto laga hadlayaa, marka aad jifto ayaa laga hadlayaa. waxaa jirku uu bilaabayaa in dareenkaagii kor loo qaado, nidaamkii muhiimka ah ee shaqadaada maalin lahayd inay kor u kacdo, daalkii inuu kaa yaraado. waxaasoo dhan waxaa la sameeyaa xilliga aad hurdayso. haddii marka hurdadii aad ka gaabiso, haddii dhafarkii aad badiso, habkaas oo dhan, shaqadaas oo dhan hakad ayay gelaysaa, waa la joojinayaa. sababtoo ah jirka waxaa loo sheegayaa maadaama aad dhafrayso oodan hurdaynin in xaalad degdega jirto, in stress jiro, in qofkan shaqada ay ku badan tahay. marka jirku meelo kale ayuu ku mashquulayaa. waxaa joogsanaya in awooddii raganimada, tarankii, hormoonadii, dibudhiskoodii, hagaajintoodii, cusboonaysiintoodii in dib loo dhigo, maadaama adigu aad soo jeedo oo aadan seexan. jirku waxaa loo sheegayaa qofkan ma seexan, marka waa inaad dib u dhigtaa waxyaabahaas. xaalad degdeg ayaa jirta maadaama qofku soo jeedo. culayskan dabiiciga marka wuxuu keenaa in jirku soo daayo hormoono kale. hormoonadaas maxay noqonayaan marka? maadaama dhafarkii aad badisay, jirku meesha xilliga hurdada testosteronkii la soo day lahaa, dhafarka adaa badiye, waxaa la soo deynayaa hormoono kale. hormoonka cortisol ayaa la soo deynayaa. stressaa jira le, xaalad shaqaa jirta, cortisol ayaa la soo deynaya. cortisol marka la soo deeyo waxaa yaraanaya testosteronkii. sheekadan inaad fahantaa loo baahan yahay. testosteronkii ayaa yaraanaya. marka cortisolka zaa'id u kaco oo dhiigaaga uu ku bato, waxaa dhacaysa in testosteronkii la yareeyo.
maskaxdu totally waxay joojinaysaa amarka ah in testosterone la soo saaro. tanina waxay keentaa marka in wax soo saarkaagii jir ahaan, caafimaad ahaan, shaqo ahaan, nooc walba kalsooni ahaan, maamul ahaan, taran ahaan, shahwa ahaan, wax walba inay hoos u dhacaan. wax walba hoos ay u dhacayaan. natiijaduna marka waxay noqonaysaa inaad noqoto nin tabar aan lahayn, daalan, jamaaci aan ku fiicnayn, jir ahaan daalan, maqaarkaaga isbedelayo, madow aadan lahaa jirin aad lahaatid, oo iftiinkaagii oo dhan uu dhumaayo. waxaad ogaanaysaa marka timahaagii inay baaba'ayaan, dufanka jirka inuu kugu badanayo, calool inaad yeelanayso, miisaankaagii inuu kor u socdo, xitaa haddii aadan xataa cunto badan cunin miisaankaagiaa kor u socdo, sababtoo testosterone aa yidhaahday, estrogenkaa kugu badanayo, hormoonada dumarkaaba kugu badanayo. fikirkaagii ayaa hoos u dhacayo, marba inaad shaqaba qabto fikirkaagii hoos ayuu dhacayaa. ninkii hore oo fikri jira maba tihidba, go-aan qaadasho ma lihid, maanta qorshaa sameynaya waa ka baxe, waxaasoo dhan testosteronka ayaa hoos u dhacsan, cortisolka ayaa badan, stresska ayaa kugu badan. dhakhaatiir kasta u tagto iyo si kastoo daawo lagu siiyo, fitamiin kastoo lagu siiyo, haddii aadan hurdada saxaynin oo aadan dhafarka joojinayn oo aadan xilli hore seexanaynin, waa isdaalinaysaa. cilmi baaris la daabacay waxay sheegaysaa in dhallinyarada maanta joogto 50% testosteronkooda hoos u dhacay, sababtoo ah taleefon ayay ku mashquulsan yihiin, dhafarkooda ayaa badan. halka awoowayaasheen oo da ah ay ka testosteron fiican yihiin dhallinyarada hadda joogto. macnaha awowga ama aabbaha ayaa ka fiican testosteron ahaan haddii labadiina la idin baaro, sababtoo isagu ma dhafro laakiin adigu waa dhafartaa. tanina marka waxay keentay in dhallinyaro badan awoodoodii zero ay noqoto. waxaad arkaysaa dhallinyaro raadinaya kaniiniyada ragga lagu xoojiyo, waa nin dhallinyaro ah weli wuxuu raadinaya kaniiniyada ragga lagu xoojiyo, sababtoo ah kaniinigaas dhibaato kale kuu keenaa, sababta adigaa dhafraysid. dhafarka jooji. maanta laga bilaabo marka testosteronka hormoonkan inuu hoos u dhaco waxaa keenaya dhafarka. inaad seexato wax ka yar 7 saacadood, inaad seexato wax ka yar 7 saac ama 6 saacadood waxay keenaysaa in shahwadaada, tiradeeda, tayadeeda, socodkeeda wixii oo dhan ay baaba'aan. haddii marka gale iyo shahwadii oo yar iyo raganimadii iyo tarankii oo kaa daahayo, dhalmadii oo kaa daada aad dareento, hurdadaada sax. intaadan wax kale la gaarinba hurdadaada sax. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday, saaxiibadaada la wadaag.